wararka laga helayo gobolka Jubbada Hoose ee Soomaaliya ayaa sheegaya in xiisad dagaal ay ka taagan tahay duleedka galbeedka ee magaalada Kismaayo halkaasi oo maalmihii la soo dhaafay ku dagaalameen maleeshiyo beeleedyo hubeysan oo deegaankaasi wada dega odayaasha iyo culimada deegaanka ayaa wada dadaalo lagu doonayo in lagu aaso meydad dhowr ah iyo 10 qof oo ku dhintay dagaaladii shalay to ka dhacay aagaasi kuwaasi oo yaala halkii dirirtu ay ka dhacday sida ay warbaahinada afka Soomaaliga sheegeen mid kamid ah culimada magaalada ay wada hadalada ku lugta leh inkastoo ay socdaan dadaalada lagu doonayo in lagu soo aaso meydadka dadkii ku dhintay dagaaladii shalayto ayaa haddana waxa dhinaca kale ka socday urursi ay sameynayaan kooxaha dagaalka ku lugta leh dagaalada u dhaxeeya maleeshiyo beeleedyada ee ka dhacaya duleedka Kismaayo ayaa soo noqnoqday dhowrkii bilood ee la soo dhaafay waxaana horay u guul daraystay dhowr heshiis oo dhinacyada is haya la dhex dhigay